qofku markuu yar yahay dhalinyaro yahay waxa la yiraahdaa waaya aragna maaha udashal u dhashay maanta waa nin yar oo waaya arag maaha xagga kalena fudayd dhalinyaranimo ku jira Soomaalidu mahmahayda waxa kamida 20 jir intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa waxaana keenaya laba safo oo leeyahay sifada koowaadi waaya arag maaho iminku korayaayo waa geed ka yar oo soo baxay waa badan ba uma bariyin sifada labaadna waa fudud yahay wali aqligiisii iyo garaadkiisii si wacan uma fadhiisan wuxuu oran jiray Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu الشباب شعبة من الجنون dhalinyaranimadu waa qayb waalida kamid ah oran jiray waalidan de maryaha tuurtay ma aha يعني wuxuu ga jeedaa fudaydka iyo isdhexmarka badan marka qofka dhalinyarada ahi wuxuu u baahan yahay cid ka aqoon badan oo ka waaya aragsan oo cilcilisa inta uu soo kobcayo kolba sida awgeed waxa laga maarmaana inuu culimada muallimiintiisa ku xidhnaado oo tala weydiiyo oo dhageysto oo xikmada ka qaato wax weyn bay u taray